أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل كان قد ونيسين ودانسن تي في هذا اللي يسود هذا ما أنت وحيدين وضع أرين أعرب أنا أوجه الله وحلي رادو تشالوسيدا تشالسكا تشالوج وحلي رادو أما مسيركا أما قيوركا أنتوا بس كسب أروري وحلا سكودا مسير marka masaarka ayaa qayb badan u kala baxa qaybtiisa koowaad ayaan maanta rabaa inaan bilaabo waxaan ka bilaabayaa markuu qoysku sidaad ahaan guriga qoys wuxuu ka bilaabmaa hooyo aabe marka ay hooyadii aabiis guursadaan ilaahay wuxuu siiyaa ubad oo ma sha Allah ubadka marka la siiyo ee koowaad waxaad ognahay inaanu si xad dhaaf ah ee farxad ku jidho ee koolkoolin ku jirto ee ma aragtay xiiso weyn ah iyo de farxad maashaad aan caadi ahayn oo ilmaha koowaad inuu waalid ku qaadayo marka ilmaha lama dhigo dhulka lama dhigo caanaha dhabta maanta kor baa loo sidayaa sariirta waa loo diidayaa halku dadka kale oo adduumada ay joogaan ayagu ay soo barteen qaylasho waxay tahay laakiin anagu wili qaylkii nagu sii dabayariya dad badan way barteen for example anagu daas ka soo qaado igu adkeed laakiin marka barato waxa barata way maxaa marka dhacaya marka ilmaha koowaad aad dhasho ayaa waxaad u diidaysaa cir iyo dhul intaba marka wuxuu noqonayaa ilmaha yar inuu adabta kugu noqdo maanta dhan u dhabta kaaga fadhiyo diido hadii cunto cunayo iyo haduu seexanayo hadii kale inta isaga qasanto uu rabo always inuu dhabtaada ku jiifo kadib maxaa dhici doona sanad ama 2 sano kadib ayuu ilaahay ubad kale ku siin karaa waaba dhashay ilmo labaad baa dhashay maxaa marka la rabaa ilmihii labaad uma haysid waqtiyo wili kiiba kugu dhagan oo ooyaya oo matagaya oo xanuunsanaya xanuunka waxa laga yaabaa adigu inaad u garato inuu xanuunsan yahay ama caloosha laga hayo ama dhibaato kale cunug soo saartay may hadii kii hore booskiisii iyo hawlihiisii fantasiyiisii iyo damaashaadka uu wada markii inta dhulka sariir ku rido kan labaad oo u bilowdo tir Allah ilaahay kaas hawshiisa waa dhamaatay kan ba hawshiisa u bilaabaya maya ma soconayso waxa rabaa marka si aqal ku jiro oo cilmeysan inaad ilmaha kan dambe wali aqal ku filan iyo yar yahay macnaa kuma uusan baranin in waxa la rabaa hadii aad dareento ilmaha hore matag xanuun hurdo la'aan oo hin joogto ah cuntada uu diido inta aad ku aragto calaamadaha idmiinis waxa weyn ilmaha yar waa masiirsan wuxuuna ka maseeray ilmaha dambe dhashay oo aad dhabti ku hayso oo aad adigu aad koolkoolinayso oo ama aad u heesayso marka wuxuu aaminayaa wixiisiiba inuu kan dambe isku qaatay okay maxaa laga rabaa marka waxa laga rabaa inaad ilmaha dambe markay aad dhasho aadan u koolkoolin si xad dhaaf ah markaad waqtigiis wax siiso xafaayadiisa ka bedesho cuntada siiso xoolkiisa inaad geliso kii hore waa inaad soo qaadaa sababtoo ah kaas dhaawac baa gaariya damage-ka gaarana dawo ma leh xaqiiq markii laga hadlo marka waxa iga wacdiyay iga tala ah hadii ilmo ilaahay ku siiyo kan koowaad xad dhaaf ka dhigin waa run waalid baa waa jeceshay laakiin markaad waqtigiis wax siisid wax uu hadhowto kaaga fuqi waayo musqusha ka gali weydo qof bin aadan oo ku soo noqdo daqiiqad ka hayn waayo ama aad ka tukan weydo ama aad ka neefsan weydo ha ku sameyn waxa taas oo la jeedo ma ilmaha ganac laakiin u samee sharciga ah inaad nadiifiso cuntadiisa siiso waqtigiisa ku seexiso adiguna aad isbaran gacanta always halka xabadka inta ku haysid aad maanta dhulka dhigi weyso laana adiga hadhow dhibaato ku tahay inaad ma aragtay ka neefsan weydo cunto ka karsan weydo ka qubeysan weydo salaad ka tukan weydo kan dambe aad dhashana riski bay u tahay inuu intuu xanaaqo xoolka ka soo tuuro wax uu rabo uu ku sameeyo dib uu u geysto cadaawadna uu qaado marka maanta xillada koowaad qaybta koowaad waxay noqonaysaa masayrka caruurta kan curad iyo kan ku xiga insha Allah bil kariim way noo socon doontaa masayrku wuxuu aakhirka u soo dhurshaban doonaa meel fog marka laakiin qaybtiisa koowaad maanta idin kaga sheekeeyay oo ah in markaad dhasho ilmaha aad kala ilaaliso iskuna ilaaliso إن شاء الله بالكريم وحنا قندونا برنامج تحنا أو قص قيبتي سكواد أي هذا الدعوتين أنت الدنبا وحنا قال حرير دونتين شيكا قص إن شاء الله بالكريم أنت أي كد بحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.